maanta oo ay bisha tahay 20-ka bisha December maalin Axada waxaa halkan ku kulmay madaxweynayaasha dalalka ku bahoobay IGAD oo ku kulmay shirkii 38aad ee aan caadiga ahayn shirkaas oo looga wada hadlayay qodobo ay ka mid yihiin uguna weyn yihiin xaaladda ay ku sugan tahay wadamadan ku bahoobay IGAD guud ahaan iyo xaaladda ka hortagga COVID labadaas qodob ayaa ugu waaweynaa sidii awalba ajendaha lagu soo gudbiyay Soomaaliya iyo Kenya arintooda waxaa lagu bilaabay shirka in marka hore ay dhacaan is-aragyo ay dowladahaasu isu wada arkayeen oo loo kala dabqaaday la dhaxgalay laga hadlay kadibna shirka weyn la isugu wada yimid hadda oo shirkii uu gabagaboobayna waxaa laga shaqaynayaa warmurtiyeedka ama communique-ga halkaas ka soo bixi lahaa intaasay hadda ku dhan tahay wixii ka dambeeyana dib aad in la socodsiin doonaa